سلام الله عليك BBC مغاي مبلري فيصل محمد بكال أقنول مقالة بيدبا حرونتا كونفور قلبات runtii hadii aan fikirkay ku dhiibada dagaalkii shalay la ka qaaday hotelka Kigali ee Nairobi ee Kenya runtii may bahay mid khasaare shay iyo dhibshay wadadi balse may ba muuqatay intii may leedahay dawladda Kenya iyo ku gaabaday amaanka magaalada lis record intii may leedahay dhinin isku dhigdi oo may leedahay amaankii ama baan sugayn waayo mil oo bulshirogda ya intii la weerar oo la gala taasna mees record intii amaankii may leedahay wili may leedahay faraar la ka hay balse dawladda Kenya oo ka guuleysatay may leedahay intii ku biyan dadkii meel galan waana bogaadiye may balaha hadawaaye BBC mahasinidiin. السلام عليكم BBC Somali magacaygu waa xasaab sugo oo jooga South Africa hadii aan aragtidayda ka dhibto in weerarkii lagu qaaday in hotel ku yaala Nairobi in anigu weerarkaas ilama ahan in uu ka dugan yahay weeraradii aan hore uga barnay oo lagu qaadi jiray hotelada oo ka dhici jiray dalkeena Soomaaliya in sidoo kale weerarada noocan oo kale caalamka way ka dhacaan laakiin halkan waaba in yasran yahay maadaama ay 10 qofood ay ku dhinteen laakiin anaka boqolaal baa nooga dhimato marka weerarkaas hotelada lagu qaado marka waxaan leeyahay weerarada noocan oo kale wax micna ah oo ka dugan kii dalkeena ka dhacay malaha marka sidaas bay aniga ila tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو عبد الوهاب ضيب شيخ جامع عبد الجيسي دقان حرنت قبلك أوضل إيه مقالة بورما أنيقا وحيلتها ويركاسي لغو قاضي هوتيل كميدا عاصمة نيروبي إيه دالك كينيا إني عدينيسو إن عيدا مدى كينيا آني فوجيقنين بوليسكوغا عيدا مدى عاديقا يكو سردون كتونا وحسلو باهيسي وحاسي أوردن لوغو هرتغو إن عيدا مدى كينيا وديار قروبان إني ودن kooga xasladaan halkii ay Soomaaliya ku andacoon lahaayeen inay nabad ka dhalinayaan oo ay ku jiraan ciidamada AMISOM ee 22,000 ee askari ku dhow ee 2007 ilaa maanta xal ka gaari la xaalka Soomaaliya dejinala waxa Kenya la gudboon in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ammaankeegana sugato.